السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي وإن سلامي، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصحابي مدنت إلهي وأن دمنين إلهي وأن جوغايو بالآدم كستو ودمنايا نف كستنا ويقويسا رسولك صلى الله عليه وسلم عد كشرف بدن أدونكم إيمانين وبالآدم نور الانتي الله أكبر. qof walbana way dhimanaysaa, qof walbana way dhimanaysaa oo qof walbana kitaabkeeda midigta Allah ka siiyo. su'aasha qof walbana su'aasha Ilaahay ha u fududeeyo. qof walba oo sakaraadka dhaafana su'aasha Ilaahay ha u fududeeyo, naxariis janna Allah siiyo. waxaa dhintay ra'iisul wasaarihii hore Nuur Cadde, Allah u naxariisto. aan leeyahay Allah u naxariisto. marne maxay ahayd dad aab qaran ahaa, marne maxaa la dhahayay nin Soomaaliyeed ahaa, aab Soomaaliyeed. Allah u naxariisto. waa geeri naxdin leh. waxa waaye qof walba way dhimanaysaa, qof adduun joogaysa ma lahan asxaabay. aan u wada duceyno. waa aab qaran, maxaa la dhahayay adduun cid joogaysa ma lahan. marka asxaabay aniga maadaama oo la iga fiican yahay waxaa la iga fiican yahay dhanka siyaasadda. aniga reer siyaasad ma ihi, dadka yani siyaasadda si raacraacana ma ihi, bis laakiin waxyaabaha qaar waa ka damqadaa. markuu dhinto qof Soomaaliyeed, markuu dhinto qof walaalkeen marna waxaa la dhahay aab Soomaaliyeed ama hooyo Soomaaliyeed, waa ka damqadaa. yani qof walbana way ka damqanaysaa. yani ilaahay maxaa la dhahay qalbigeeda jilicsanaan ku abuuray. waxa waaye marka taariikhdiisa wax idinkaga taataabto maadaama ayaan igu fiicnayn in taariikhaha inta badan. insha Allah wax ka ogow, insha Allah meel walbana waad ka helaysaa taariikhdiisa. qofkii wanaagsan markii qofkii ay wanaagsan tahay, yani markii ay nooshahay wax fiican ay qabatay ama maxaa la dhahay ummadda taariikh fiican ku reebtay, si fiican loo hadal hayaa, si fiican looga hadlayaa, taariikhdeedana waa laga hadlayaa. wuxuu ku dhashtay Muqdisho, ma fahamtay? marka wax ka ogow Nuur Xasan Xuseen taariikhdiisa. Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde wuxuu ku dhashtay Muqdisho. waa madaxweynihii waa ra'iisul wasaarihii 12aad xil ka qabtay Muqdisho. marka wuxuu ku dhashtay Muqdisho. waa reer Muqdisho, waa dareemi kartaa reer Muqdisho kulligii waa taqaaniin. reer siyaasad, dadka siyaasadda yani zaid u taageero waa ogtihiin, ama siyaasadda mar walba ku dhex jiro waa ogtihiin wanaaga uu ka sameeyay. xilka ugu horeeyay oo qabtana waxay ahayd dhanka kastamka. marka wuxuu qabtay shaqooyin badan oo meesha lagu soo koobi karin. wuxuu noqday dhanka booliska, wuxuu noqday ra'iisul wasaare. shaqooyin badan uu qabtay. ilaahay abaalkooda ha siiyo. ilaahay dambigiisa hore iyo dambigiisa dambana Allah ha cafiyo. dad badan oo lasoo shaqeeyay sidii Cabdullaahi Yuusuf, asna Allah u naxariisto. kulligoodna Allah u naxariisto. qof walba oo muslim oo dhimatay. marka saas darteed ha loo duceeyo asxaabay. ducada waa xagiina. geeriduna waa xaq. qof walbay ku imaanaysaa, adiga ku imaanaysaa, aniga ku imaanaysaa, qof walbay ku imaanaysaa. qof adduunka joogaya ma jirto. qof walba wuu dhimanayaa, qof walbana maalintiisa u dhimanayaa. xanuunka oo ka dhintan asxaabay waa wada ogtihiin. ilaahay hanaga najeeyo, inta muslim ahna hanaga najeeyo insha Allah. ilaahay waxaan uga baryaynaa ummadda muslimiinta inuu ilaahay caafimaad ku bedelo xanuunka socdo. ilaahay caafimaad ku bedelo. ilaahay maxay ahaytood inta xanuunsan oo la ildaran xanuunkaasne ilaahay raxmaanka uu caafiyo, caafimaad waara ilaahay uu siiyo. marka sida la wada ogyahay yani hadda maxay ahaytood ilaahay baa og wuxuu ku dhintay. yani qofka markay dhimanayso ama marka waqtigeeda dhimaado sabab uun bay rabtaa mooye
waqtigeeda waa ajisheedu way qoran tahay, qof walbana maalinteeda imanaysaa, qof walbana maalinteeda bixaysaa. marka maalintiisa amaanta ahayd markuu dhimanayo qofka waxa waaye sabab lee loo raadinayaa, qof joogayna adduun ma jiro. waxaan leenahay ehelkii iyo qaraabadii oo ka dhintay, waxaan leenahay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun. ilaahay ha u naxariisto, jannatul firdaws alaclaan allah siiyo insha allah. ducada aaba wax loo dhiga lahaynin, qofkii loo duceynayo waa qof muslim ah oo la jecel yahay. ilaahayna maxay ahayd waxaan ka rajeeynaa marti la jecel yahay allah ka dhigo. marka Soomaaliya qurbaa joognaa, ilaahay hanagu amaansado, ilaahayna hanagu xifdiyo. xataa xanuunka socdo waxaa la leeyahay dadka qaar waxay leeyihiin qofkii ku dhinto yani sida la sheegay lama dhaqaayo, janaasada ma lagu tukan karo camal, lama ogolo. anaga dad islaamaan nahay, qofkii dhimato waa lagu tukanaa janaasada, waana qasab. laakiin adi wadan gaalaa joogtaa, gaalaa kuu taliyo, waxaa lagu dhihi karaa qof dhammo soo raacay. soo qofka markuu hadda xanuunsado kale isbitaal lagu xareynaa, qofna looma ogolo. hadda xanuunka socdo caalamka dhan ka qaylisiiyay, marka qofka qola lagu xareynaya. qofka marka qol lagu xareeyo lama ogolo in lasoo booqdo, lama ogolo in maxay ahayd loo galo. qof walba uu iska ilaalinaya, xanuunka waa la kala qaadaya lagu yiri. marka subxaanallah, ilaahan ka magan galaynaa insha allah. waa kurbo qofkii oo xanuunsan yani xanuun badan heynin, haddana dadkiisa loo diiday, qol lagu xiray, meel lagu karantiilay. maxaa la dhahaye iidan qofka dhan niyad jabaa ku dhacayo. laakiin ilaahay waxaan ka magan galaynaa balaayadaas iyo musiibada socoto inuu ilaahay subxaana watacaala naga xijaabo, inta muslimaan ilaahay ka xijaabo. inta qof kastoo ilaahay ku xiran ilaahay ha baryo, qof kastoo ilaahay jecel ummadda ha u duceyso. qofkii dhimatana ha loo duceeyo, qofkii xanuunsanna ha loo duceeyo, qofkii caafimaad qabtana ha loo duceeyo oo ilaahay ha ka xijaabo. qofkii xanuun la ildaran ilaahay ha caafiyo, qofkii caafimaad qaban ilaahay raxmaanka u siyaadiyo. qofkii dhimatana ilaahay jannatul firdaws allah siiyo insha allah. firdaws wax ka fiican ma lahan, jannatul firdaws wax ka fiican ma lahan ya. marka waxaan leenahay inaa lillahi